madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay xiritaanka shirweynaha sanadlaha ah ee garsoorka dalka ayaa ku dheeraaday ka hadalka qiimaha cadaaladda iyo doorka garsoorka oo la hagaajiyo ka qaadan karo saldhigashada nabadgelyada dalka. shirkan oo 2 maalin ka socday Muqdisho ayaa dib loogu milicsaday waxyaabihii ka hirgalay ajandayaashii hore la isula qaatay inay garsoorka Soomaaliya u qabsoomaan sanadkii dhamaaday ee 2019 caqabadihii soo ifbaxay iyo ahmiyadaha ay tahay in diiradda la saaro sanadkan bilowga ah ee 2020. Suleymaan Maxamed Maxamuud xiriirliyaha guud ee Soomaaliya ayaa ka hadlay faa'iidooyinka laga dhaxlay qabashada shirkan. madaxweyne mudanayaal iyo marweyn shir sanadeedka garsoorka waa shir qaanuuni ah oo ay qeexayaan xeerarka nidaamka garsoorka ee soo kala baxay 62 iyo 1974 qodobada 30 iyo 32 labada xeer waxaana ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay shirkan ay tahay in laga wada hadlo lana qiimeeyo guulihii la gaaray sanadkiina dhaafay qorshayaasha u qorsheysan garsoorka sanadka soo socda iyo caqabadaha la rabo in la daraaseeyo si looga gudbo si loo gaaro guulahaas. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay dadaalka ay ugu jiraan tayeynta hay'adaha garsoorka dalka. mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn sanadkan sidaad ka aragtaan boardka waxaa halkudhig loo qaatay garsoor tayo leh. waxaa la isla gartay garsoor tayo leh inuu yahay ka keliya ee hirgelin kara hanashada iyo helitaanka dawlad tayo leh oo bixisa adeegyada ay muwaadiniinta ugu igman tahay isla markaana soo celisa karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd. garsoor tayo leh ayaa xaqiijin kara inuu sharcigu noqdo ka sareeya aanu noqon qofku ka sareeya. garsoor tayo leh ayaa wuxuu xaqiijin karaa dhowridda xuquuqda aadamaha. garsoor tayo leh ayaa wuxuu xallin karaa khilaafaadka iyo waxyaabaha ka dhaxdhaca muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka ku nool guud ahaan geyiga Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkan soo xiray ayaa isdul taagay muhiimadda ay qaranka u leedahay tayeynta hay'adaha cadaaladda iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in garsoorayaashu cadaalad falaan shacabka. waxa uuna madaxweynuhu madasha kaga dhawaaqay in isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda uu bilaabayo ka garaabidda tabashooyinka walaalaha gobolada waqooyi ee dalka. aasaaska nabadda iyo xasiloonida waxa weeye waa cadaaladda ama rule of law wax la yiraahdo oo ku dhisan shuruuc kala dambeyn iyo nidaam. nabadda la'aanteeda waxa weeye garsoore ma jiri karo mana shaqayn karo. nabadda la'aanteeda hay'adaha amniga ma jiri karaan. garsooruhu iyo hay'adaha amnigaba iyagaa gacanta ku haya nabadda. haddii garsooruhu uu ka tago taas mabaadi'daas uu ka tago xaqiiqatan haddee nabad lama heli karo. markii 2 qof oo midna dhib sheeganayo oo dhiban yahay midna wax dhibay hadduusan u xaqsoori karin u garqaadi karin oo laga yaabo inuu garta siiyo qofka dhibka wada macnaheedu waxa weeye garsoorahaasi kama shaqeyn nabadda kama shaqeyn. haddaba haddaan joognaa waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah. marka waxaa loo baahan yahay garawshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo. wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno. macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka samayno. inaan cudurdaar ka samayno, inaan raaligelin ka samayno dadkaas walaalaheena ah. intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay. waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysan.